Degmadanu way sanadii ugu dambeysay way soo hagaagaysaa waxayna naqaysaa horumarka dalka ka jira ee maanta caalamku gaaray ayay qaybtara ka galooysaa iyadoo aan ay muuqan hadda wax weyn laakiin ay 10 sano ugu dambeysay ay si tartiib u soo galooyso 10 sano ka hor waxaa la arki jiray degmada Runugood ee gobolka Shabeellaha Dhexe in hal baawur oo weyn oo xamaaliya oo weyn oo xamuula uu yimaado kaliya wixii la meeray ay naqdeen baawur laangaruusina oo kaliya oo marka dhif oo bishii lama joor la arko amba degmada dad lacag haysta ay ku yimaadeen amba degmada mara ay ahaayeen hadii laga reebo kuwa sida daruuriga u mara wadada oo maalinlaha ay habeen la ahaba laakiin sanadii ugu dambeeyay waxa arki waysaa mootada loo yaqaan Falcon oo si caadi ah uga howlgasho magaalada oo beeraha joogta sabto deegaan amba beer ah amba xoolo meel ku dagayeen adina $2 warato lagu geynayo meeshii hal saac bar loo socod jiro lagu geynayo 10 daqiiqo iyo wax la mid ah marka wax weyn iska bedelaysaa degmada runtii waan ku faraxsanahay anigu dadka degmada degan maadaama aan ahnay waan ku faraxsanahay waxa kaloo arkaysaa baawurta yar oo Leila Calaawiga iyo baawurka sida inay si caadi isaga joogan degmada oo bariga dad u baahato adiga iyo odayaalaha bariga odayaashu ay markii xilliga hore way jiraan halka markay gibir soo dhisayaan amba meel booqayaan waa iska raacaan lacag qiimo jaban $15 $14 $20 ay ku raacaan si deegaan kala dheeri tusaale ahaan haddaad degmada Runugood ka baxayso rabtaan albaada adoo runtii qiyaas fog u jira degmada $15 ay ku geynayaa baawurka yar oo needka ah bal Leila Calaawiga moota Falcon ay ku geysan muddo 20 daqiiqo marka hadda barnaamijku u dambeeyay waxa socda dhalinyaradii waxa dhacday cidii ay ku amraan waalidka ay ku amraan dhahan amba xamaran aadina san ka xamaalina amba xnu gudasho moota Falcon $800 joogta si aan xoolaha ugu goobano caawdina aan ku aadno caawdina aan deeshi ku aadno hadda waxa arkaysaa in gabdhihii isbedeleen xataa ay dhaheen hadii ilaahay idmaaya ninkan moota Falcon aan wadan ma shaqaynsan marka horumar weyn ka muuqda degmada maalin kasta degmada baawur la urdaaya haddana 5 bilood ugu dambeysay amba sanadka 2018 bishii la xaliyay ka dambeeyay waxa la arkaysaa mootadan sida caadiga Muqdisho iyo Soomaaliya magaalooyinka waaweyn caalamka uga howlgasho loo yaqaan oo bajaad nooca banaanka ah oo qudaarida lagu adeegto iyo qaraha lagu qaado inay degmada ay maaday ay xataa si dameerka ma howlgalay ay gashay oo dhaamayso biyaha loo dhaanayo beeraleyda beer walba ay soo dalbadaan cida beeraha joogay leeyihiin 20 jiirigaan 15 jiirigaan 30 jiirigaan halna ku keenay qorbaqsi tabateetay iyadana uu keenaysa gaari dameerka orobaan ninka la yiraahdo daqiiqada uu keenaysa degmada Runugood waxa ku soo kordhay caalmac oo laga furay degmada oo laga soo jiida caalmaha cali meel yiraahdo oo bari tubuulin bam la suray laga soo jiida marka deegaankan aad ayuu ninka la yiraahdo hormaraya Runugood media aadaan runtii uga mahad celinayna inuu xariirna soo sameeyo oo leeyahay buga kaliya ee maanta degmada ka faalooda degmadana ku magac ah runtii waxaan sheegaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed dibadda joogta Soomaaliga joogta kuwa heesta weeyaan kuwa waxaysan ilaahay soo disho balse kuwa heesta in degmada runtii horumarkooda ay ka shaqeeyaan degmadayna horumar ka shaqeeyaan degmadayna dayactir ugu sameeyo la yimaado la dhisto ayaan doonaynaa runtii hadda degmada caawdi way dansanto la yiraahdo ceedo male laakiin waxaan ugu baaqi lahayn dhalinyaro waxay sida haday jiraan way wax siiyay inay runtii degmada ku dhisaan marka anigoo kamida dadka deegaanka waliba degmada jooga aad iyo aad aan soo dhaweeyay beedka Runugood media inaan maanta waraysi la soo xiriiro qadka telefoonka marka aad iyo aad muhiimsan Runugood media ilaahay barakeeyo aydan qoraayo aniga insha Allah